taliska guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa maanta soo bandhigay sarkaal ka soo goostay ciidamada maamul goboleedka Puntland. Sarkaalkani waxa uu ciidamada Puntland kala soo goostay gaadhi nooca dagaalka ah, hub isugu jira qoryo iyo rasaas. Qaar ka mid ah hoggaanka ugu sarreeya ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa ku soo bandhigay xarunta guud ee taliska. Sarkaalkan ka soo goostay ciidamada Puntland iyo gaadhiga uu watay. Hoggaanka abaabulka ciidamada qaranka Soomaaliland gaashaanle dhexe Cabdirasaaq Bashiir Maxamed waxa uu Ariel TV u sheegay in ciidamada Puntland uu ka tirsanaa sarkaalkani isla markaana uu maanta ka mid yahay ciidamada Soomaaliland. sarkaalkii ka soo goostay maamulka Puntland oo la soo goostay gaariga arkaysaan oo isku saaran yahay iyo qoryakan iyo shirkiisii oo u soo goostay Jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. sarkaalkaas oo ku soo biiray saacada laga bilaabo kamid ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waad u jeedaan tiknikadiisii iyo qorigiisii iyo wixiisii mana aha kaligiisa saan jecelahay waxa weeye waxa soo imaan doona saan rajaynayno dhafo u imaan doona ilaa idinkiisa kuwa kala imaan doona oo aan rajaynay inay yimaadaan. marka sidaa darteed difaaca ayay ka qayb galayaan, dalkoodii ayay u yimaadeen, ciidankoodii bay u yimaadeen, calankoodii bay u yimaadeen, dhulkoodii bay yimaadeen, dhul shisheeye ma imaan. waxay yimaadeen waa dalkoodii iyo ciidoodii iyo calankoodii iyo ciidankoodii. saacaddan laga bilaabana waxay ka mid yihiin ciidanka Jamhuuriyadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayay ka mid yihiin, iyagoo aan rajaynayno kuwa kaloo mabda laga xaday ama maskaxda laga xaday ama macnaha yacni runtii khalad been laga dhaadhiciyay inay imaadaan. kuwaan iyo kuwa ka baanba way imaan doonaan. waa markii ugu horreysay xarunta guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland lagu soo bandhigo sarkaal ka soo goostay ciidamada Puntland. waa Maxamed Bashiir Nuur Greek, Ariel TV, Hargeysa.